shirkadda isgaadhsiinta casriga ah ee Somtel. salaanta ka bacdi munaasabada aynu maanta halkan isugu nimi waa munaasabad la yiraahdo ama barnaamij aan ugu magac daray maamuuska macmiilka oo ay shirkadda Somtel ka daafurayso caasimadda dawladda Puntland ee Garowe oo aanu islinay ka daafura teeramkan halkan oo waxaan soo wadnay 4 sano ugu dambeysay barnaamijyada tan muddadii 7 sano ahayd oo ay shirkadda Somtel joogtay barnaamijkan maamuuska macmiilka waa barnaamij wax loogu celinayo macmiilka dib wax loogu celinayo laguna dhiirigelinayo isticmaalka adeegyada shirkadda uu isticmaalayo ay ka mid yihiin internetka iyo ku hadalka iyo isticmaalka adeegyada shirkadda Somtel oo isticmaalayo isagoo adeegyadiisa isticmaalay oo internetkiisa isticmaalay oo ku hadlay maaragtay hadalkii lacagta ku shubtay ayaa waxa haddana abaalmarin lagu siinayaa isticmaalka uu isticmaalay barnaamijkan wuxuu soconayaa insha Allah sida qorshaheedu yahay muddo 2 bilood muddada 2 bilood waxay shirkaddu ugu talagashay inay ku bixiso gawaari Probox oo aan ugu talagalay in macaamiisheedu ay qofkii ugu talagalay inuu gaari raaxa ka dhigto qofkii ugu talagalay gaari shaqo inuu ka dhigtana ku shaqeysto oo hadduu ku tagsiinaan lahaa iyo hadduu ku safri lahaaba aanu gaari Probox ku soo xulay sababtan gaariga Probox ku soo xulay wuxuu noqday gaariga ugu isticmaalka badan deegaanada Puntland oo hadda aad loo isticmaalo saasaan markaa waxay sinay bulshada qiimaha u yeesho oo aanu gaariga u keenay sidoo kale waxa ku jira isagana sado dahab baa ku jira oo iyagana waxaan isay bal rag iyo door bay ku guuleysanayaan laakiin bal abaalmarin si gaar ah gabdhaha u taabanaysa iyagana ama xitaa dadka damacsan aroosyada iyo guurarka iyo waxyaabo badan iyo xaalmarinada iyo inay dahabka isticmaalaan oo sadahab oo dhameystiran waa wax maaragtay wax badan ku kordhin karta reerkaas isagana waa inoogu jira oo isaga waliba wax rajayna 15 casho mar inaan bixino muddada uu socdo sidoo kale waxa inoogu jira electronics fara badan oo ay kamid yihiin mobiles oo kamid yihiin qasaalado ay kamid yihiin talaakado ay kamid yihiin maaragtay waxyaabo badan oo electronic ah inoogu jira barnaamijkaas wax rajayna insha Allah inuu noo sii socdo sanad kasta mar baan daahfurnaa marka sanadkan halkan ka daahfuray wuxuu noqon doonaa insha Allah barnaamij aan rajayno in macaamiisheedu ay dareemaan lahaansho iyo in shirkaddu aanay intay isticmaalaan aan la oran waa mahadsantihiin waa isticmaashaan oo laga tagay balse ay arkaan wax celin loo sameeyo si guud shirkadda Somtel markasta waxay u heelan tahay inay bulshada dib wax ugu celiso oo duruufaha bulshadeedu ay markaa ku sugan tahay ku sugnaano qiimo dhimistii aan sameynay sanadka oo ujeedadeedu ahayd abaarihii ina soo maray duruufihii shirkaddu waxay sameysay qiimo dhimis aan ilaa hadda shirkadda telecommunication ka sameyn guud ahaanba Soomaaliya oo dhan gaar ahaan deegaanada aan joogno oo $1 ay maaragtay hadalka oo kale waxa laga dhigay $1 kaliya in la isku waco Puntland oo dhan iyo Soomaaliya guud ahaanba $1 kaliya bishii lagu hadlo marka shirkadda Somtel markasta waa shirkad bulshada garab taagan oo la socota oo la duruuf ah tan iyo inta deegaanada Puntland ku soo korodhana hadday tahay shaqaalaysiin oo derbiyo waaweyn aan halka aan ka soo koobi karin baan jabinay tan iyo maalintan imaanay oo ay ka mid tahay shirkadda ugu horeysa wax bulshada in lagu celiyo sameysay shirkadda ugu horeysa qiimo dhimis sameysay haddaan israado bilow maanta dhan maaragtay ma dhamayn karayo hadda waxa ugu dambeeyay isagana markii ugu horeysay adeega eSIM la yiraahdo oo qofka maskaxdiisa in loogu programmiyo SIM cardka ayaan deegaanada Puntland ka daahfuray oo hadda isticmaali kartaan oo dadka telefoonada iPhone-ada iyo telefoonada casriga ah sita ay isticmaali karayaan oo telefoonkaaga ku xafidaya oo aad maaragtay isagoo hal SIM card laha 2 SIM card ka dhiganayso sidoo kale haddii hadda tuuga iyo dadkaas waxyaabaha dadka ka dafa ay kala carraan qofkii telefoonkaagii kama dhaxbaxaysid kaar u tuuraya ma jiro markasta uu daaro waa dhex fadhidaa kaarkii soo celiba oranaysa kula socdaa shirkadda lafteedu way ku heli karaysaa meesha lagu isticmaalayo kaarkii maadaama uu wax maskaxda ku sameeysan yahay markasta waxaan isku dayaynaa inaan bulshada u keenno wixii ugu dambeeyay oo karaankayaga aha oo aanu bulshada caalamka aanu kaga madrigi karno intaas marka ma doonayo hadalka inaan idinku badiyo maadaama mas'uuliyiin badan ay ka dambeeyaan oo dawladda waqtigoodu maaragtay aad ciriir ugu yahay mar saddexaad iyo marlaad barnaamijka aan meesha isugu nimi waa intaas aad baan idinka mahadcelinayaa waqtigiina si guud inta nagala soo qayb gashay iyo guud ahaan macaamiisha sharafta badan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Somtel waa dookhayga waana dookha dadweynaha